gabar yar oo waxbarashadii ku jirto dugsiga sare dhiganaysa Soomaalida waa taqaanay dhaqanay leeyihiin gabadha waa la muqooniya odaga go'aanka soo gaara ninkii la rabaa lagu daraa sidaas baa lagu daraa marka waxa dhacday gabadha reerkeeda ka tashtay waxa la yiri wiil hebel adeer dhalay baa lagu daraya oo meelahan qurbaha jiray dibka jira wuxuu ahaa wiil wuxuu ahaa qurbaha ku soo wareeray dadka waa aragna Soomaalida markay xagga tageeno waa la qabsan waayaan marka waxa dhacda waa la iska aamusiyaa nin marka wuxuu ahaa la soo aamusiyo isaga dhan fadhi hadana culays kale sii jiro wuxuu ahaa meesha reer iyo ilmo joogay oo xagana reerkina problem ka haysto dhinacii kala dalku ku noolaa problem ka haysta asaga dhan wuxuu ahaa dadkan leeyahay stress ku soo dhacay la marka waxa bal inuu soo dago dalka hala keeno inta la keenay waxa la yiraahday qof dajiya loo baahan yahay hadana gabadhaas lagu daray arinta kale oo yaab kale waxay ahayd gabadha looma sheegin ninka problemkiisa wixii soo dhan inta arooskii la qaban qaabinayay wixii la sameeyay wax dhan looma sheegin markii guriga loo geeyay baa gabadha wiilka ninka dhalay oo gabadha adeer u ah abeeda dhashay baa gabadha u wacay wuxuu ku yiri gabadhaydii ninka meesha ku jira mujeeda xoolaha wax ma dhaho ina xanaanayso baa laga rabaa waa in adeerka qof kale looma hayo dabeecadda ku arki doonto kula dhaq gabadhi waxay tiri waxaan u tagay nin aamusan oo hadlaynin oo inta kursi xagga kala dhigta sida ay soo kuuray soo fiirinaya sagaashanka waxay tiri hameenkii u horeeyay sida isku dayeynay waxay tiri waana ka cabsanaya oo ma seexan karo wuxuu ugu sameeyay ma qaaninkii way dilaya waxay tiri asagiina oo cabsanayaayo duruufta dhibka haysta waa la yaabana ninka soo aan seexanayn waxay tiri hameenkii waa saas buu nagu bari adigu waxay tiri muddo isbuuca todobadii ugu talagalay dadku inay jawi degan ku qaataan wax ku qaadanay dagaal iyo dib alxamdulillah waxay tiri waxaan xasuustaa hadalkii adeerkay ah ninkan adu xanaan kaaga baahan yahay waxaan ku dadaalay tiri inaan markaa furfuro hadalka keeno qofkii qof caadi ka soo dhigo noloshiisa adu waxay tiri muddo 8 bila awada joognay qof caadi soo noqday bulshada dhaxgaliyo dadkii wax la qaybsanayo leh waxay tiri habdhaqankiisuna nin iska wanaagsan oo nin undurufu ciileen oo ay mooyee siis kala waana marka naxariistiisii iyo habdhaqankiisii wanaagsanaa waxay tiri anuna qof bini aadan ahay qalbigayga baraacay arintu waxay sida ahaato ninkii markuu caafimaaday wuxuu dib u soo xasuustay inuu caruur iyo ilmo lahaa oo meel uu soo tagtay wuxuu yiri waa baxaya reerkii ilmihii wixii baa soo fiirinaya marka waana soo laabanaya insha Allah waxay tiri culays ma arkin waxaas dib dhan ma arkin ninkii sidaas uu ku baxay airportka diyaarad ka saaray waa baxay markuu xagga tagay ninkii hadalkiisa baa waay mirqadiis adoo kaalayba hadalka keen maalin baa waxa soo wacay tiri taleefankiisa waa laga soo wacay inuu meel kuma sheegin reerihiina uma sheegin ma dhihin ninkii ma soo wacin waxa ay bal u kaad taleefan baa soo wacay oo kiisiya waa qabtay tiri dhagta baa saaray marka ninina islaam baa ka dhaxlayso leh fur imaqshiyaad hadda imaqshi waxaaskiisa ma waana xabiitil marka taleefkii baa damiyay asaga dhan dibka ka jiray tiri waxaan isriitay meeshan wax ka soo yeeri doon wax fiican ma muddo isbuuc oo sida taleefkii iga dinsanaa isbuuc kadib baa shitay taleefankii wuu soo wacay markuu soo wacay wuxuu yiri wax dhiba iyo wax dhibaato ma jiraan arintuna way sii hagsanaysaa markii anigu aadamco baa ku soo wacaya adoo haba soo wacin adoo waxa noqday tir qof la qarinayo arintii waxay sida ahaato arintii way soo xumaatay adoo aakhirkii waxay tagtay inuu yiraahdo warqad baa ku soo diraya inaan kala tagno baa doonaya ruantii waa ka xumaaday tir hadalkaas sababtoo ah qofkiina qalbigayga raacay wax munaasib oo ka jiro marka arintaas ugu dhacday tir reerkii baa u sheegay adigu reerkii waxa ninka adigu aan gaaray waxa laga ma qaban karo sidii baa wixii tir ku kala tagay ilmo marka xataa wixii tir inuu maleynaya calooshii ku jiray iyo waxba iga soo halaabo markii wixii bis adigu waxay sida ahaataba ninkii waa tagayo waxay tir waxbarashadii baa isaga laabtay muddo kadib
baa waxaa arkay maalin maalmaha ka mid ah gaari ii taagan jaamacadda irdeeda oo hoon ii yeerinay waa fiiriyey waaba isagii soo raac nakeen kuma raacayo aduu waxay tiri sijiid kadib waa raacay xafaddii buu geeyey dood baa galnay iyo imam frid iyo wali qasbay iyo dhib baa ku jiray iyo aduu waxbuu sheego waxay tiri qalbigiina qofkii waa ka go'a sidaa waxay tiri waa ku yiraniyo ina kala wada maasna marka waxa kamid ahaa hadduu waqti sharaf lahaa aniga adiga wadaagnay hadday weheladu wax goyso wayaan kula joogo hun wanaagu hadduu abuuro agtaada wax aan ku beertay hadday naftu waana yeesho wax waad bartay ay ku toosto hadday naftu waana yeesho wax waad bartay ay ku toosto jacaylku hadduu wareero walaalnimo sooma fiicno hadduu sii waari waayo waxyeelo xun sooma keeno hadduu waddadiisi waayo wixii ku baraashalaya war xun sheegidiisa waxaa ka wanaagsan aamus waxaad wadda iyo rajaynta ugu calafka ka weyn wax dheef shalay kuguma dooran inaan biyo kaa waraabo weynihi yari kuuma fiirin waxaad tahay waad ahayda qalbigu soo kuma wakiilan xaway waxbaan kaa iloobee ninku da ahaan gabadha waa ka weynaa ogow weer suubanaantu waxaan kugu raacay weeye ogow ficilada wanaagsan halkan waa wax ay keenay wacnaantu ma sii jirayso wixii la rabaa nagaani waxaana ilaawi doonin waxaad ii fasho wanaaga waxaana xasuusan doonin wixii qalad ka ahaaday calafku waa si lagu yaqaanay muxuu wax un kala fogay isfahm waa reer dhiskii muxuu udabooskii waay walaac waa go'aan la'aanta waxaa saxalkiya gaari waxaan leeyahay dhageyso wallaan war igaga dambeyn wasiiru ma tiidu nafteeda warqad uga raba saxiixa haddaad la wacneed shalayto maanta wax kala u muuqda ma tihid sheegii wadaayay waxyaan ku socdoo muhiima hortaa waxaan ahaa qof nool kullay mana wadatid nuudka xiriirkii hadduu waswaasay waxaan leeyahay go'aanka